higankeni iyo qawligii guud iyo guryantii waa horseedaheni dalka horumarkiisiyo intisaha dhismaha qaran wayrgeliyaheni jangoynta himilada. kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal meel kastoo aad joogtaan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka hawlaha guud dhulka iyo guriyinta jamhuuriyadda Soomaaliland. Engineer waxa warbixin naga siisaa la socodka shaqada dhismaha qaab noocaya loola soconaya ama ay wasaaraddu inta hawlaha socdaan ay la soconaysaa ama wadaba galaysaa. Bismillahir Rahmaanir Rahiim. si waafaqsan xeerka kala xadeynta nidaamka xukuumadda iyo hay'adaha madax bannaan xeer 71/2015 qodobkiisa 4 waxay wasaaraddu qaranka u qaabilsan tahay dabagalka iyo la socodka shaqada dhismaha iyo dhismayaasha. marka iyadoo qodobka fulinaysa waxa laga rabaa dhammaan shirkadaha dhismuhu inay u hoggaansamaan habraacyadii loo diyaariyay ee uu ka mid yahay habraaca shirkadaha dhismaha iyo injineerada Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo habraaca ilaalinta tayada dhismaha. wasaaraddu waxay hubinaysaa shirkadahan dhismuhu in xogta laga diiwaan geliyay ay tahay mid sax ah oo aan wax isbedel ku dhicin, mid farsamo iyo mid shaqaale iyo mid maaliyadeed intaba. xarumaha ay ku shaqaynayaan inay yihiin qaar markaasi iyo goobta shaqaduba dhismuhu ay ka socoto in la ilaaliyo badqabkoodii iyo badbaadadoodiiba si muwaadinka looga badbaadiyo markaa halista dhismuhu oo aanu haddii dhismahaasi dumo aanu shaqaali ka shaqaynayay aanay dhib u keenin. in shaqaalaha ka shaqaynaya markaasi ay xidhan yihiin qalabkii safety-ga iyo badbaadada inay xidhan yihiin, in markaasi ay u hoggaansamaan heshiiska lala galo sababtoo muwaadiniin bay wax u dhisayaan amaba waxay u dhisayaan dowladdii amaba hay-ad bay wax u dhisayaan. marka heshiiskani waa ay la galeen inay u hoggaansamaan oo ay sidiisa uga soo baxaan agabka ay ku shaqaynayaan inuu yahay mid markaasi agabkii shirkadaasi gradekeedaas ku habboonaa isna inuu yahay ayaa iyana la hubinaya. marka intaasoo qaybood ayaa laga eegi doonaa. marka wasaaradda hawlaha guud dhismo kasta oo socda iyo mashruuc kasta oo dhisme waxay ka hubin doontaa qaybaha kala duwan. qaab noocaya loo kormeeraya ama kormeerka baaritaanka dhismayaasha dinta guud noocay noqonayaan. wasaaraddu maadaama ay qaranka uga mas'uul tahay dhismo kasta oo dowladda loo dhisayana iyadu ay u samayso naqshada dhismaha isla markaana ay ku daba gasho in qandaraaslaha dhisaya uu u dhisay qaabkii loola heshiiyey waxa ay imikaba wadaa oo ay dhismo kastoo dowladda loo dhisayo ay hubiso badqabkiisii. wasaaraddu waxay injineer ama mas-uul u xil saari doontaa inuu dhismahaasi bilow ilaa dhammaad uu joogo oo uu kormeero warbixin maalinla ah iyo mid toddobaadla ah iyo mid bilo ahba uu ka soo gudbiyo. way intaan su'aasha ka bixin bal iyadana warbixin naga sii kormeerka iyo baaritaanka dhismayaasha dadweynaha haddana marka hore ka hadalnay kuwii danta guud bal kuwa dadweyne noocay noqonayaan. waddankanu maadaama uu soo korayey caqabado badanna ay hortaagnaayeen halkaynu kasoo bilownayna ay ahayd meel aad u hooseysay. wasaaraddu inay dhismo kasta oo la dhisayo oo dadweynuhu leeyihiin ay baadho waxa ay saameyn taban ku yeelan lahayd dhaqaalaheenna. waxaa jira dad fara badan oo dee u dhisanayay si aan habboonayn ama si aan waafaqsanayn sharciga aan waafaqsanayn. sidaa awgeed iminka waxa ay wasaaraddu diyaarisay inay dhismo kasta oo la dhisayo oo ay dadweynuhu dhisanayaan 3 qaybood loo qaybiyo: dhismo darajadiisu tahay A iyo mid tahay B, dhismo darajadiisu tahay C, dhismo yar, mid dhexe iyo mid weyn. marka dhismo kasta waxaa laga rabaa requirements iyo shuruudo u gaara. marka habraac kale oo wasaaraddu diyaarisay oo kaga hadli doono insha Allah xalaqaadka dambe oo la yiraahdo habraaca ilaalinta tayada dhismaha ayaa sheegi doona shuruudaha laga rabo dhismo kasta. marka iyada lafteedana wasaaraddu waxay baaritaan ku samayn doontaa dhismayaasha dadweynuhu leeyihiin ee ka socda waddanka Jamhuuriyadda Soomaaliland. aad iyo aad u macsan tahay bal kobcinta shirkadaha dhismaha iyaga nooga war. maadaama ay jiraan shirkado dhisme oo fara badan oo waddanka ka jira dhaqaalaha waddankana ay si laxaadle uga qayb qaataan. habraacana qaybihiisii hore aynu kaga hadlaynay iyaga maxaa laga rabaa. haddaba su-aashan waxa ay awoodda saaraysaa maxaa wasaaradda hawlaha guud ay u qabanaysaa shirkadahan dhismaha, qaab noocayay bay u kobcinaysaa maadaama waajibkeedii tahay iyo xilkii qaranka uga mas-uulka ahayd. wasaaraddu markaa waxay ka kobcin doontaa xagga farsamada iyo aqoonta iyadoo u qaban doonta tababaro lagu dhisayo mugooda aqooneed iyada oo u samayn doonta amaba siin doonta markaasi shirkad kastana la siin doono qorshe dhammaystiran oo ah qorshihii lagu tababari lahaa. waxaa kale oo loo qabanayaa in loo diyaariyo habraacyo iyo nidaamyo casri ah oo ay ku shaqayn karayaan. marka nidaamyadaas waxaa ka mid a nidaamka markaa dabagalka iyo la socodka shaqada shirkadaha dhismaha, nidaamka qiimeynta waxqabadka shirkadaha dhismaha. sidaa daraaddeed waxaa la kobcin doonaa qaybaha kala duwan ee shirkad ka koobanta, hadday tahay shaqaalaheeda, hadday tahay qalabkeeda, iyadoo loo fududeyn doono inay la soo degaan qalab hadday u baahdaan. dhinacyo fara badan baa markaa laga caawin doonaa.
waa si wanaagsan. qaab noocee loo qiimeynaya shirkadaha dhismaha sideena loo abaalmarinayaa shirkadaha dhismaha? bismillahi raxmaani raxiim. waynagii nidhi waxaynu diyaarinaynaa nidaam casri ah oo lagu diiwaan geliyo shirkadahan dhismaha. nidaamkaasi markaa wuxuu ka kooban yahay sideen horeba u sheegnay qayb lagu qiimeynayo waxqabadkii shirkadda dhismaha. shirkadda waxaa la diiwaan gelinayaa mashruuc kasta oo ay bilowdo iyo mashruuc kasta oo ay dhamayso. waxaa la garanaya waqtigii ay ku bilowday iyo waqtigii ay ku dhamaysay. halkaa waxaa nooga soo baxaya time managementkeeda iyo waqtiga sida ay u ilaalisay. waxaa la diiwaan gelinaya kharashka ay shirkadaasi qandaraaska ku qaadatay iyo kharashka ay ku dhamaysay. mararka qaar waxaa dhacda inta uu mashruuc socdo inay isbedesho uu qiimuhu isbedelo. saa daraadeed shirkadda waxaa lagu qiimeynayaa qiimihii ay ku qaadatay miyay ku dhamaysay oo cost saving miyuu jiray oo kharashkii loo qorsheeyey ma lagu dhameeyey. waxaa kaloo laga qiimeynayaa xagga quality-ga iyo tayada. dhismahan tayadiisu muwaafaqsan yahay standardska caalamiga. waxaa lagu qiimeynayaa oo kale xaggii badqabka iyo badbaadada oo dhismahan wax dhibaatay kama iman, wax maaragtay halis ku ah muwaadinka kama iman ama cidda dhismaha isticmaalaysa. marka afartaa qaybood ama afartaa dhinac ayaa laga qiimeyn doonaa shirkadaha dhismaha. waayo qaab noocee markaa loo diiwaangelinaya ama diiwaangelinta mashaariicda dhismuhu maxay yihiin? nidaam casriya baa lagu diiwaangelin doonaa. saan horeba u sheegnay la diiwaangelinayo mashruuc kastoo dhismoo la dhisayo. taas waxay naga caawinaysaa inaynu ogaano tirada iyo xaddiga dhismayaasha maanta waddankeena ka socda, inaynu la soconno shaqadan dhismaha iyo in aqoonta iyo farsamada iyo hababka ugu fiican ee dhismaha shirkaduhu isweydaarsan karayaan. shirkad A ayaa qaab habboon ama qaab dhismaha ku habboon wuxu dhistay. taas waxay keenaysaa in aqoonta ama collective knowledge ka dhexeeya shirkadahani uu noqdo mid meel keliya ku jira oo ardayda jaamacaduhuna ay wax ka baran karayaan. marka mashruuc kastoo dhismay waxaa la siin doonaa user ay ku soo geliyaan mashruuc dhismaanu bilownay. halkaasi oo markaa injineer lagu assign garayn doono. injineerkaasina uu ka hubin doono qaababkii kala duwanaa aynu soo sheegnay tahay xaggii waqtiga, xaggii tayada iyo xaggii quality-ga intaba. qaab noocaasi ah ayaa loo diiwaan gelin doonaa dhammaan mashaariicda dhismaha. magaca markaa macluumaad fara badan baa laga diiwaan gelin doonaa. kolley marka xog la helaba ayaa tala la helaa sida la yidhi. marka magaca shirkadda dhismaha injineerada ka diiwaan gashan. shirkad kasta waxaa laga diiwaan gelin doonaa xataa injineerada u shaqeeya. injineerku marka hadduu shirkad A buu shaqeyn jiray oo wuxuu tegay shirkad B, waxaa laga rabaa inay shirkadaasi soo diiwaan geliso in injineerkaasi uu ka wareego shirkadaasi uu u wareegay sax waayo aragnimadooda shaqo ee shirkadahani leeyihiin. iyada laftooda waa la diiwaan gelin doonaa. waxaa la diiwaan gelin doonaa mashaariicda dhismaha ee ay hadda gacanta ku hayaan ee socda. waa hagaag haddaynu iskoo gaarno su-aasha ugu dambeysa ee barnaamijkeena cabashooyinkii anshaxmarinta shirkadaha iyo injineeradu qaab noocey yihiin iyagu? horta muwaadiniintu laftoodu waxay xaq u leeyihiin maadaama ay qayb ka yihiin dhismihii, maadaama ay yihiin kuwii wax loo dhisayey. kow wasaaradda horta waxay ka caawin doontaa inay heli karaan xog dhammaystiran oo ay ka mid tahay sanad walba in la siin doono shirkadaha waddanka ka shaqeeya iyo mid walba macluumaadka ku saabsan. haddii markaa ay shirkaddii wax u dhisaysay ay ka cabanayaan oo ay kaga cabanayaan kow inay samaysay markaa dayac shaqo iyo aqoon darro ama tallaabooyin baalmarsan anshaxa shaqada dhismaha. haddii ay shirkaddu markaa ku kacday musuq maasuq ama khiyaamo, haddii ay shirkaddu ay burisay shuruud ka mid a shuruudihii lagu siiyey ruqsadan, iyo cabashooyin iyo dhaqamo kasoo horjeeda shareecada islaamka, dhaqanka suuban iyo dastuurka iyo xeerarka jamhuuriyadda Somaliland, intaaba hadday ku kacday waxa uu muwaadinku xaq u leeyahay inuu kasoo gudbiyo cabasho. waxaa jiri doona diiwaan lagu kaydiyo cabashooyinka. diiwaankaasi wuxuu ka koobnaan doonaa magaca iyo qofka cabashada soo gudbiyey, shirkadda laga cabanayo iyo cadeymo iyo macluumaad dheeri ah haddii uu qofkaasi wato. marka wasaaraddu waxay qiimeyn doontaa, ay ku samayn doontaa cabashooyinka laga keeno shirkadaha dhismaha iyadoo markaa eegaysa in la buriyey qodobadan ku jira abraacan amaba ku jira xeerarka jamhuuriyadda Somaliland. haddii ay wasaaraddu markaa ku qanacday in ay jiraan burintaasi ama in qof cabashadani ay sax tahay, waxa ay ku samayn doonaan baaritaan cabashadaasi. injineeraa loo diri doonaa. injineeraasna wayso cabashadaasi ayay soo darsi doonaan hadday markaa cabashada ku qanacaan. haddaba ciqaabta ka dhalanaysaa maxay tahay? qof kastoo markaa cabasho soo gudbiya, waxaa jiri kara dad shirkadaha ka cabanaya oo aan uga cabanayn si saxa. qofkaasi haddii uu soo gudbiyo guddida cabasho aan asal iyo raatoona lahayn oo ujeedo baalmarsan anshaxa suuban ka leeyahay, haddii qofkaas soo gudbiyey been abuurka, waxaa lagu qaadi doonaa si waafaqsan xeerka ciqaabta oo waxaa la tigsan doonaa maxkamadda. haddaba tallaabooyinka laga qaadayo shirkadda haddii cabashadaasi ay ku caddaato laga cabanayay maxaa ka mid a? kow, in la siiyo digniin qoraal ah oo loo diiwaan geliyo la dhahdo shirkadaas wax la siiyey, digniin afeed baa la siiyey, in la saaro ganaax, in laga xayiro ruqsadda iyo in laga laabto ruqsaddaba. intaasi oo tallaabo ay wasaaraddu ay ka qaadi kartaa. waa hagaag dhegeystayaal, waxaan soo gaarnay guntii iyo gabagabadii barnaamijka howlaha guud dhulka iyo guryeynta jamhuuriyadda Somaliland.
higankeeni iyo qawlihii guud iyo guryantii waa horseedaheeni dalka horumarkiisiyo hindisaha dhismaha qaran wayrgeliyaheeni jaangoynta himilada